qarawuxu horumara shaqala hormuudkii agar li markay taa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shaqaale weynaha dawladda iyo shaqaalaha guud waxaan leenahay Ramadan Kareem berri oo maalin Jimco ah oo ah 1 May 2020 waxay ku beegan tahay maalintii shaqaalaha adduunka haddaba maadaama ay ku beegantay maalin Jimco ah oo maalinta toddobaadlaha fasaxa laga galo ee caadiga ah gudida hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay go'aamiyeen in maalinta Sabtida loo riixo fasaxii maalinta shaqaalaha sidaas awgeed maalinta Sabtidu waa fasax ay shaqada ka fadhiyaan shaqaalaha dawladdu guud ahaan marka laga reebo shaqaalaha meelaha halbowlaha jooga sida isbitaalada iyo masaajidada maxaan ku dhahdaa madaarada meelaha muhiimka dekedaha meelaha muhiimka waxa kale oo halkan dardaaran ka direynaa la xiriira cudurka halista ah ee safmarka ah ee COVID-19 ama coronavirus ee adduunka khatarta ku haya inaynu waanada iyo wacyigelinta iyo talooyinka ka imanaya gudida heer qaran iyo dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka baa aynu u dhow yeelano si aynu uga badbaadno khatartiisa cudurkaas oo khatar far badan ku haya wadamadii dhaqaalaha badan haya awoodda badan sheeganayay ugu dambeyn waxaan hambalyo u dirayaa shaqaalaha guud ahaan xaasaskooda caruurtooda iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba maalinta shaqaalaha adduunka ee ah 1 May biidnillaahi tacaala hambalyo baan leeyahay ilaahay sanadkiisa inuu gaarsiiyo roobkii waa inoo shubay barwaaqo iyo bashbash assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qarawuxu horumara shaqala hormuudkii agar li markay taa